munaasabadan oo lagu soo dhaweynayay mashruuca dhismaha dekada Hobyo ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada deegaanka oo kaashanaya maamulka degmada Cadaado waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug maayarka degmada Cadaado aqoon-yahano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan dadka kala duwan ee xafladda ka soo qayb galay waxa ay qabeen dareen isku mid ah oo muujinaya siday u soo dhaweynayaan mashruuca dhismaha dekada Hobyo aniga waxaan jiray 14 sano markii la lahaa waa la dhisaya waxaana ka soo wareegtay 56 sano marka haday maanta dhisato waa nasiib dad joogayaan dawladda maanta jirta oo madaxweynaha uu ka yahay Farmaajo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Xasan Cali Khayri xisbiga nabad iyo nolol waxaan leenahay marka koobaad waan ka mahad celinaynaa. نشكر أيضا جزيل الشكر من أعماق قلوبنا لدولة قطر في تعاونها المستمر لإعادة بناء وتقوية الدولة الصومالية في تنفيذها المشاريع التنموية. ونخص الشكر بإقامة المشروع الجديد في بناء ميناء هوبيو في الصومال في تنفيذها المشاريع التنموية. alaabta markii dekada laga soo dejinayo waxa dhici karta culays aad u badan cashuur aad u badan mid walba inuu ku yimaado inta lagu dalbaday laba jibaar mid uga badan haday dekada Hobyo u shaqeysay reer Galmudug waxaan qabaahay inay reer Galmudug najixi lahaayeen. xafladda taagna maanta waa tarxiib ama soo dhaweyn ama taageerid aan taageerayno dhisida dekada Hobyo sida uu nahay dadkii ugu horeeyay sheegeen dekada Hobyo dhamaantii waxay noo tahay Soomaaliya oo dhan ay tahay halboole. بعد السلام halkan waxaan galab ku joognaa inaan ugu mahad celino dowladda Soomaaliya iyo Qatar heshiiskii ay gaareen in dhisi doono dekada Hobyo dekada dhisitaankeeda waxa uu soo socdaa muddo dheer dadka reer Galmudug haddii ayagu aysan tashan cidna wax ma siin karto gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug Caruuse Macalin Maxamed waxa uu bogaadiyay dadaalka dowladda Soomaaliya ugu jirto dhismaha dekada Hobyo marka waxa ogtiin in nolosheena ku xiran tahay aan u baahana baahida aan u qabno waxaan uga mahad celinaynaa dowladda Soomaaliya heshiiska ay la saxiixatay dowladda Qatar oo ah inay dhisto dekada Hobyo taasina runtii waa waxaan aad iyo aad u bogaadinayno oo aan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole maayarka degmada Cadaado waxa uu codsaday in laga saaro rajada dhismaha dekada Hobyo si dhab ahna loo bilaabo dhismaheeda. waxaan leenahay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatarba wixii aad sheegteen ka dhabeeya mashruucan dekada Hobyo waa sensitive muddo fara badan ayaa dadka Soomaaliyeed sugayeen muddo fara badan ayaa dadku inta la sheego ayuu hadana dib u dhacayay waxa la rabaa inay ka duwnaato maantay barnaamijkan inuu ka dibnaado barnaamijyadii hore oo inta la sheego baaqa jiray inuu ka duwnaado annagu waxaan taageeraynaa heshiiskii dhacay iyo dowladda Soomaaliya si barnaamijkaas ay uga taxadartay waan taageeraynaa. xildhibaan Xasan Cabdullaahi Casasay oo xildhibaanada Galmudug ka tirsan waxa uu dhankiisa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ay uga mahad celinayaan iskaashiga dhismaha dekada Hobyo. waxa laga joogaa dhagax dhigii hal sano iyo wax ku dhow in haddana maanta dhismaheedii uu joogo inuu bilowdo waa wax aad iyo aad loogu farxo horumarka iyo nolosha ummadda reer Galmudugna way ku jirtaa waxaan maanta aad iyo aad u muujinaynaa oo taageeraynaa oo halkaan shucuurtan la soo koobi karin aan ga hadlaynaa mashruucaas inuu bilowdo. dekada Hobyo ayaa ah isha dhaqaale ee kaliya ee maamulka Galmudug oo leeyahay waxa ayna bulshada reer Galmudug dhammaan meel kasta oo ay joogaan ay isha ku hayaan ballanqaadka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ee ah in la dhisayo dekada magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta Goobjoog magaalada Cadaado.